Mara nyingi vita ama malumbano ikizidi upande wa Somalia, utaona watu wanatorokea upande wa Kenya, na hiyo kutorokea kwao hapa si kwa mwaliko wa Kenya. ilmi farako ma haya, ilmi iskuul ma aadan, madarasa ma aadan, dugsi ma aadan, digsiga dabka la saaray lama cuno. bali bar soo faan deganahay beebo waa ka guuray waan ka qaxay tolna ma haya dadweynena ma haya dowladna ma haya. أنا ماشى وادي من البايل أنا طلباتني وسيدي جرا ماشى أقول لهم حنا كلام أرني وحنا هنقدر وحنا تفضل سنة وحنا هنقدر بال إيو بر أيضا كانوا دول دقنيهن أنا بيبوا وكسوقي هاينا وجورينا منديرا أنسودجينا sisi hatuna vita, sisi hatuna silaha ya kujilinda. Pale Mandera, maaskari ya Jubaland wameingia Mandera. They have occupied more than half of the town. Waliua watu 5, 7 people have been injured. They have opened a camp in BP1. BP1 primary school is now closed. And there are people who want to do exam in the next 1 month. How do you close a public school and turn it into a military training camp? It is impossible. We now find ourselves hosting these foreign forces on our soil, exposing our people to danger. beerihii oo dadka reer BB1 oo ka tirsan kursiga aan hadda leega doortay ayay dhex degaday ay degan yihiin oo dadkii maartay beeriya inta la sameystay ayaa beerihii maartay dadka ay ka shaqeysan laayeen arinta ayaa nahaysa dad badan baa ku dhaawacmay maama ama hooyo oo maartay reer BB1 ah oo magaceeda la yiraahdo Faadima Barrey Maxamed Nuur ayaa ku dhimatay meesha oo ku nafwaysay soddonkii bishii July 2025 dagaal culus ayaa xilli maqrib ah ka qarxay degmada Balad Xaabo ee gobolka Gado. ciidamada dawladda federaalka Soomaaliya ayaa weerar ku qaaday saldhigyo ay ku sugnaayeen ciidamada Jubaland. iska horimaadkaasi ayaa waxa uu si gaar ah uga dhacay agagaarka xarumaha dawladda oo ay ku doonayeen inay si buuxda uga wareegaan ciidamada taabacsan maamulka Axmed Madoobe. xaafadaha Mandera ee dhanka xuduudda ku dhow sida Township, Geneva, Buruburu iyo xaafadda BB1 ayaa laga maqlay dhawaqa joogto culus ee hubka ay isweydaarsanayaan labada ciidan. isla maalintii guri ku yaalo garoonka kubadda cagta ee Geneva ee magaalada Mandera ayaa xilli galab waxa ku soo dhacay madfac burburiye saqafka sare ee guriga waxaana goobta kubad ku ciyaaray dhalinyarada Mandera oo markii dambe goobta iskaga carray. magaalada Mandera gaar ahaan xaafadaha ku dhow Cali Baliliqo ayaa waxa ku soo dhacay hoobiyaal halka laga soo tuuray aan la xaqiijinin. guriga uu ku dhacay ayaa markii dambe holcay. gudaha magaalada Mandera ayaa isla habeenkaasi laga maqlay laba jug oo aad u culus. wixii markaa ka dambeeyay waxa ay magaalada Mandera hoy u noqotay laba ciidan oo shisheeye oo haddana ku dagaalamaya gudaha dalkan Kenya gaar ahaan xadka. maalmo kadib waxa la arkay ciidamo tiro badan oo ah kuwa ka tirsan ciidamada Jubaland oo xaafado dhan la wareegay iyagoo gudaha magaalada Mandera saldhigyo military ka sameystay iyagoo aan wax fasax ka haysan dawladda Kenya ama xitaa laamaha amniga ismaamulka Mandera. taasi oo keentay in shacabka reer Mandera ay xaafado badan iskaga qaxeen. xaaladda amni darre ee ka taagan magaalada Mandera ayaa waxay dadka reer Mandera dhaxal siisay barakac, cabsi joogto ah, ganacsiyada oo albaabada la iskugu dhuftay iyo iskuulada qaar oo la xiray cabsi darteed. waxaana la sheegay in dhowr qof lagu dilay gudaha magaalada Mandera. xiisada ka taagan magaalada Mandera ayaa cirka isku shareertay iyadoo dadka deegaanka ay shalayto iskugu soo baxeen banaanbax ay kaga soo horjeedaan joogitaanka ciidamada Jubaland. ilmi farako ma haya, ilmi iskuul ma aadan, madarasa ma aadan, dugsi ma aadan, digsiga dabka la saaray lama cuno. mar walba waa la kor taagan ma kari waxa la soo sheegay Jubaland intay joogta intay soo socota ciidan gorma isku dhufanayeen la leeyahay mar walba buurta nagta inay soo istaagayeen xabadaha agta inay ku dhufanayeen naagta ilmaha ma ka warqabto gorma digsi karan gorma ilmo soo celin gorma iskuul laada Jubaland beeri waa naga xirtaabeen dhaaran shaqaysan jirni habeen dhiraar galabna ma shaqaysan habeenna ma shaqaysan subaxda bisan salaada markaas waaga bari oo salaad subax la tukudaan aan magaalada aadayna magaalada ilmihi ma nabadaas ugu tagi doonta مسيدا الله قحص وتجد أنت مرنا كم رأسن Jubaland ناي ما أنت نهرجش أنا قلا قاضي فهذا مع عبد الله حسين بالي ده صوف بانجرا بالإبر صوف عند جنا هاي بيبو وكجوري وعنق قحي دوق سجاش سنو جرا أسوق ويا لا إذا حبت دعاء سير صاصي هو بي حد هذا نايا أصدق جورن جيت أنقلو كفي أنقلو دعاء
كبعد طلنا ما هاي ددويننا ما هاي دولنا ما هاي أنا ماشي أوادي من بايل أنا طلباتني iyo 8 jira meeshaan guriga maxaan kiraan aragnay nolol nooma taala naf ma hayno naftu ma hayno saan ilaahay nagu goomo wax madkaysan ma hayno waxaan naga rara waxaan tafadaal saana waxaan naga rara ma arka karna awal arka dhana arka karin ilmi iskuul waa noo dhigi waayeen dugsi waa dhigi waayeen naf nolol lagu jirto tafadaal waxaan ku codsanaa dawladda ka yahay nolol ma tahay naga rabto oo raacid aan ahan halkaas naga qabto dhibaatada biiboon hayso waad ka hadasheen waad mahadsantihiin dhibaatada soo socotaa ka weyn bil iyo bar ay ciidankaanu dul dugan yihiin haddaad banaanbixi waysaan reer Mandera oon banaanbixi wayna oo magaaladaasay imaanin inta la xira la banaanbixi waaya dhibka weyna dhici doono dhibka weyna soo socdo annaga biiboon waa ka soo qeexi haynaa waa guuraynaa Mandera aan soo degaynaa county commissioner xafiiskiisa aan soo degaynaa biri handaad ilaahay maydin ama beri damba waa xirxiran hayna waa guuri hayna balaayaan dul degan wax naga qaadan waa laanay reer Mandera diyaar garooba ilaa jimcahan daal bixin waayo culimada caamada dadweynaha wax u sheegaynaa hal binaan baxa magaalada hal xira nimankan nagala qaada habeenii maalin hal hayna wax naga qaadan laanay waxa kale oo sheegaynaa Ruto one time Ruto wameumiza jina za wamemaliza yani wamemalizana huko nchi yao wamefuruga wamekuja hapa sisi hatuna vita sisi hatuna silaha ya kujilinda maisha yetu iko hatarini sisi hapa mahali sisi tunaishi kuna banda nyingine banda ya kusini kuna serikali kuna askari yetu iko hapo banda ya magharibi iko Ethiopia banda ya kaskazini iko banda ya serikali ya Somalia banda ya huko chini ya banda ya northern side kuna Jubaland hapa wanaishi hapa famu zetu tulienda kila mahali tuliongea ya kutosha tumeenda kwa serikali tumeenda kwa county tumeenda kwa DC county commissioner ametuambia hawa watatolewa hawakutoa juzi alisema wako ndani na wako kwa shamba yetu unajua kitu kingine lazima mtu ajue ya kwamba kama hakuna amani hakuna shule hakuna madarasa watoto wetu wako kwa madarasa hawako kwa duksi mwezi mbili uliopita watoto wetu hawajasoma wengi wetu wameenda IDP sasa watoto wako kwa mkono yetu shamba yetu imekauka wajamaa wanaishi hapa kwa shamba yetu tunauliza kwani sisi watu si hapana wenyeji wa Kenya are we not Kenyan unaona hakuna constitutional right kuna constitutional ya right hapa sisi tunaambia hao watu wahame wasipohama sisi tunaumia sisi hata tunaweza enda huko hatuwezi kupigana na hao watu ambao wako na mabunduki wako wamejihami serikali ndio iko na hiyo jukumu wakati juzi tuliambia county commissioner ya kwamba hao watoa amesema wako na wanaishi hapa mas'uuliyiinta laga soo doortay ismaamulka Mandera ayaa gabi ahaanba iskaga aamusay xaaladda Mandera ilaa markii dambe uu hadlay madaxweyne ku-xigeenka hore dalka Rigathi Gachagua isagoona sheegay in magaalada Mandera ay la wareegeen ciidamo shisheeye halkaasi oo ay ka geysteen dilalka muwaadiniin reer Mandera oo ilaa xilligan aan wax la iska weydinin tumeona ya kwamba nchi yetu imevamiwa by troops from foreign countries. Pale Mandera, maaskari ya Jubaland wameingia Mandera. They have occupied more than half of the town. Waliua watu 5. 7 people have been injured and many people have been displaced including schools. The leadership of Mandera was there over last weekend. Instead of castigating the invasion of Kenya by foreign forces, they were castigating Rigiji. Juzi nimeita TV nikasema askari wako pale ya nchi jirani. Sasa ndio nimeona governor wa Mandera ameamuka analia. wixii markaa ka dambeeyay waxa banaanka cad soo istaagay gabanaha ismaamulka Mandera isagoo calaalaya afkana furtay sheegana in Mandera ay ka baxday gacanta dawladda oo kala bar magaalada ay haystaan ciidamada Jubaland isagoo ka codsaday madaxweynaha qaranka iyo sidoo kale wasiirka amniga gudaha dalka inay si degdeg wax uga qabtaan xaaladda Mandera
haddii kale shacabka reer Mandheera ay hubka qaadan doonaan ayna iska bixin doonaan ciidamada shisheeye ee hurdada u diiday shacabka reer Mandheera. Mandera cannot be turned into a battleground for Somalia. We have no interest in Somalia. The only interest we have in Somalia is peace. If they cannot peace and fight, then we have no business to involve in the internal affairs. They have opened a camp in BP1. BP1 primary school is now closed. And there are people who want to do exam in the next 1 month. How do you close a public school and turn it into a military training camp? It is impossible. So tunawaeleza immediate relocation of Jubaland Force out of Mandera. Immediate. I want to tell them, if you don't do it, we will do it ourselves. maanta waxaa haddana markii ugu horeysay muddo bil ah ku dhow warbaahinta soo hor fadhiistay senatarka laga soo doortay ismaamulka Mandheera Cali Rooba isagoo sheegay in waxa Mandheera ka socdo in indhaha laga qabsan karin isagoo taageeray hadalkii ka soo yaray gabanaha ismaamulka Mandheera ee ah in dalka uu gacanta ciidamada ka bixi doono haddii aan tilaabo degdeg ah dawladda ay qaadeen. We are aware the national government administration in Mandera have tried to hide that and denounce, saying the statement that was given by the governor is not true. Hiding the truth of the presence of Jubaland forces within Mandera town is like hiding the sun using your hands. We are here to give an enforcing press statement on the alarming situation in Mandera, the presence of foreign forces occupying our town. We wish to raise the gravest concern about the presence of Jubaland forces inside Mandera town. The illegal occupation has thrown our community into chaos. Schools have been forced to close, businesses disrupted, and families displaced in fear of stray bullets and an exploded ordnance, as well as RPG penetration within settlement areas within the county. The fear and panic now define daily lives of people in Mandera. The situation is worsening by the hour. Jubaland forces are building up their strength within Mandera town itself, inside Kenyan territory, literally taking over our town. Both Jubaland and federal government of Somalia forces are amassing troops and weapons, and a violent eruption is imminent. This is an outrage. The absurdity of a regional state government in the name of Jubaland fighting its own federal government is equivalent to Mandera County waging war against the Republic of Kenya. Yet we now find ourselves hosting these foreign forces on our soil, exposing our people to danger. Kenya's interest must lie in the strategic relationship with the federal government of Somalia, not in protecting a rogue state government. Allowing Jubaland troops to entrench themselves in Mandera, Mandera risking Kenyan lives and property is shameful, reckless, and betrayal of our sovereignty. Hussein Weytaan xildhibaanka laga soo doorto bariga Mandheera ayaa dhankiisa sheegay inuu ka warqabo xaaladda Mandheera shacabka Mandheera town ay dhib badan ay kala kulmeen ciidamada Jubaland iyagoo gabi ahaanba kala wareegay beerihii ay ku lahaayeen xaafadda BB1 waxa uu hoosta ka xariiqay in xal amni oo kama dambeys la raadin doono isagoona sheegay inuu fariin u diray madaxweynaha qaranka iyo saraakiisha ugu sarsaray ciidamada militariga dalkani Kenya in culayska laga dulqaado shacabka reer Mandheera haddii kale uu isagu horkici doono kumanaan kun oo shacabka reer Mandheera si ay iskaga saaraan ciidamada Jubaland ee ku sugan magaalada Mandheera. runtii waqti hadda ilaa iyo bil ama ka badanba laga joogo ayaa waxaa ka dhacay dagaal dhinaca beled xaawo oo Soomaaliya marka ciidamadii laba ciidan oo ciidanka dawladda iyo ciidankii kale oo maartay Jubaland ayaa meesha isku qabteen marka ciidankii Jubaland Mandera town ayaa la soo gali marka dadka iida ahaa ayaa ummadda dhib far badan u geystay oo runtii waxa way ummadii ay dhaxdegan yihiin hadda beerihii oo dadka reer BB1 oo ka tirsan kursiga aan hadda laga doortay ayay dhaxdegadii ay degan yihiin oo dadkii maartay beeriya inta la sameystay ayaa beerihii maartay dadka ay ka shaqeysan la yihiin arinta ayaa nahaysa dad badan baa ku dhaawacmay maama ama hooyo oo maartay reer BB1 ah oo magaceeda la yiraahdo Faadima Barrey
maxamed nuur ayaa ku dhimatay meesha oo ku nafwaysay gabar ayada ay dhashin haddaba Nairobi loo soo qaaday meeshan ayaa lagu daaweynaya dad badan oo kale oo ku dhaawacmeen oo hubki maartay la isweydaarsanay dad ku dhaawacmay oo badan waa jiraan oo ilaa 10 ka badan marka dhibkaas oo maartay runtii oo aan zaid uga cawanay ayaa jira anagana kulay dad reer Mandera way mudaharaadeen inta soo jeer anagana maadaama aan ahay ninkii ay soo doorteen oo MB-gooda ahaa nidaamo fara badan oo maartay oo dawladda la xiriiraya madaxweynaha wadanka ayaan la hadlay waxaan la hadlay madaxweyne ku-xigeenka waxaan la hadlay ragga militariga u weyn Kenya iyo maartay wasiirka amniga oo Kenya marka dhammaan hadda insha Allah sid ugu degdeg badan inay raggaas arintan xal loo raadiyo oo reer Mandera laga dulqaado dhibkaas ayaan ku ballanay sawirada meel walba ay ku jiraan oo waaba dad beeri BB1 oo meesha la yiraahdo FAO waxa waaye hay'adan weyn oo UN ha Food and Agriculture Organization guri oo zamaani hore oo scheme waxa jiray gurihii ay area ay qabsadeen oo hadda ay ku wataan shaqadooda dadka beerihii u socday beerihii maartay dib ay kala kulmihayaan beeri ay dhigteen beeri wad garana u maleynaa isbaara oo dadka maartay ay sidii ay u socon kareen waana xuduudka Kenya ayayna ku jiraan marka arrinta la ogolaan kara maaha waa arrin qaldan oo runtii wadan kala ciidan lagu dhaxay aan la yeeli karin waa haba yaraatee arrin suurtagal maaha waa tii aan ka hadlay aniga meel aan dhaafin ma jirta runtii waxa jira moogtahay waxyaalo qaarkoodna diplomacy ayaa lagu sameystaa waxna maartay digaal iyo qayli iyo mudaharaad marka aniga maadaama madaxweynihii aan la hadlay madaxweyne ku-xigeenka iyo maartay militarigi iyo dawladda dhammaan wasiirka amniga oo maartay waqti yarna si leedahay intaas ayaan ka sugahayaa haddii waqtigaas aan ku ballanay ay dhaafta oo arrintan xal ay iman waysa waxa igu qasbi inaan Mandera tagaana Nairobi aan kala hadlahay inaan Mandera taga ani iyo madaxda kalaba in aan 10,000 oo reer Mandera inaan soo bixina oo si toos aan wacadna qoriyaha aan ka qaadna annaga oo marka waxay noqonaysaa annaga aan marka awoodda aan la wareegna maanta wasiirka arrimaha gudaha dalkani Kenya Kipchumba Murkomen ayaa si kulul u beeniyay wararka sheegaya in ciidamada ka tirsan kuwa maamulka Jubbaland ee Soomaaliya ay gudaha u soo galeen magaalada Mandera ee waqooyi bari ee dalkani Kenya Murkomen ayaa sheegay in dadka lagu arkay gudaha Mandera aysan ahayn ciidamo shisheeye balse yihiin muwaadiniin Soomaaliyeed oo ka soo barakacay dagaal ka socda dhanka Jubbaland mara nyingi vita ama malumbano ikizidi upande wa Somalia utaona watu wanatorokea upande wa Kenya na hiyo kutorokea kwao hapa si kwa mwaliko wa Kenya hase yeeshee hogaamiyaasha deegaanka ayaa arrintan u arkay mid khatar ah oo markaasi lagu xadgudbayo madax banaanida Kenya dhanka kale senatarka laga soo doortay ismaamulka Nandi Samson Cherargei ayaa isna ka dalbaday wasiirka gaashaandhigga inuu si degdeg ah uga jawaabo arrintan isagoona xusay in xadgudub kasta oo lagu sameeyo dhul qaran uu keeni karo jawaab culus I think when a territory of a nation is violated it attracts serious repercussions and reprisals against the country or the offending forces. Dhaga kale gudoomiyihii hore maxkamadda sare ee dalkani Kenya David Maraga ayaa uga digay dawladda in ay dayacdo xuduudaheeda isagoo ugu baaqay dawladda in si degdeg ah loo saaro cid kasto aan sharciyad u lahayn joogitaanka gudaha dalkani Kenya siba ciidamada Jubbaland ee ku sugan magaalada Mandera wasiir Murkomen ayaa ugu dambeyn ku celi in xaaladda Mandera ay gacanta ku hayaan hay'adaha amniga ee Mandera wuxuuna ugu baaqay madaxda siyaasiyiinta in aysan siyaasadeenin arrimaha amniga ee qaranka haddaba daawade adigu maxay kula tahay